The people at the top are watching it. The governors of state who say, "Oh, actually, I'm against this," they're not against shit. They are not against shit. They all play for the fucking same team. Don't get it twisted. They're not against shit. Bro, it's not about white. Let ICE murk their own fellow white people. It's not about white. It's not about white. You think if they murked white people without any impunity, what the fuck are they gonna do to you? If they can murk white people without any impunity, right? The sole proprietor of this constitution that somehow applies to all of us, right? The sole beneficiary of that constitution is the white man and the white woman. Let me be fucking frank with you. If they are murking them in 4K, what are they gonna do to you? If they can murk white people with full impunity, it's not a white problem, bro. If you don't get it, you don't get it. Just say you don't get it. But this is past white or black problem. This is we are watching the twilights of a country collapsing on itself because the people at the top do not want to check each other. When I was in school, I learned that the president does not have full unchecked power. He has power, but his power can be checked. That's what I learned in school. But what I'm seeing in 2026 is the president and his little clique of convicts can do whatever the fuck they want. And the entire government is going along with it. The entire government is co-signing it. The entire government is co-signing, infringing upon the fucking constitution that these United States of America all signed upon. And that constitution only exists because the citizens themselves abide by it. The sole purpose of an elected official is to safeguard the rights of the people that elected them. Is that what's going on? Are we seeing elected officials acting? Are we seeing elected officials acting in the best interest of the average US citizen? No. They're not. That should show you that these people are all fucking playing for the same team. It does not matter whether you're white or black, you're going to be murked in 4K. It does not matter whether you're white or black, they're murking you in 4K. 8 on 1. 8 on 1. You telling me 8 people couldn't subdue one individual on the floor? No, this is to show you that, hey, we can unalive you at any time. Fear us. This is a fear tactic. This is fear tactic that the government is using. They want to scare the citizens to not exercise their constitutional right that they agreed upon. They are trying to scare citizens to not fight back and say enough is enough. These demonstrations of grabbing law-abiding citizens, putting them on the floor, putting 2 to their head is scare tactic. It is an absolute scare tactic. So when you say it's a white problem, I'm sorry to tell you, you're missing the whole point. If they're doing that to white, bro, me as a Somali, as a Muslim, as an African in this country, it's not a pretty time. I'm not gonna lie to you. It's not the best time to be those things in this country. I'll tell you that right now. If they're murking white people in 4K and you're black or you're African or you're a minority, it is not the best time to be in these streets. So I urge people, if you gotta go to work, go to work. Once you're out of work, come back to your house. Don't be outside. Then just be white. What do you mean just be white?
Do you guys not fucking understand what the fuck I'm saying? Like, damn. Whoa. عقلك قوي. عقلي من يوجي. You guys not understand what the fuck is going on? They murked a white woman. An innocent white woman that was trying to flee the scene. Not flee the scene, but that was trying to get away from the whole spiel. They murked her in 4K. They kidnapped a, what was it, 4-year-old, a 6-year-old child. They kidnapped a child and took him to a whole different state to hold him. Since when the fucking history can you detain a child? In a civilized society, since when did children become an object to use as leverage? All of these things are happening because is unchecked power. And unchecked power is a dangerous power. Everyone has a turn. White is what I mean. Huh? Everybody has a turn. White is what I mean. I don't get it. What do you mean? Are you reading that sentence? Grammatically, the sentence don't even make sense. I don't understand. But this will blow back on the administration 10 times. By the time it blows back on them, it's already too fucking late. They already unalived dozens of people for simply trying to exercise their constitutional right. The fact that people are telling people, oh, when he gets out of office, oh, the midterms, bro, we will be lucky if we make it to the midterms. The way that shit is going. The way that shit is going, you are lucky if you make it to the midterms. They are talking about going door-to-door sweep. Door-to-door. When you give men and women with egos, with unchecked egos, anger issues, because majority of these motherfuckers, right, are not the brightest. If you've seen the ones that were leaked, when you look at their face, they look beton ba ka maqan. I can't say that in English, but beton ba ka maqan. Doqomin bay wada egyihiin. Waxay u egyihiin dadka dhareerka daadiyo. Literally, dadka xanuunsan oo lagu qoran yahay ayay u egyihiin. Imagine ruux waalan baa xabad loo soo dhiibay, lagu dhahay ruux haddaad toogato oo aad disho waxba kuguma dhacayo orod streetka gal. waa ruux waalan oo xabad loo soo dhiibay. Marka dadkani dadka lagu soo dhex sii daayay, majority of them oo dad waalan, they're not mentally stable. They're not mentally there. So you gave a person that's not mentally there a weapon and a cause. You released them onto the public. It's not looking pretty, bro. It's not looking pretty. I need you guys to understand that. Tap the screen, guys. Tap the screen. I just want you to know, if you're Somali, if you're African, if you're black, if you're minority, please do not be uttering that bullshit. Oh, it's white people's time. It's white people's turn. If they're unaliving white people in 4K and nothing's happening, and the government is not like, wait, aren't those our people? We're fucked. You motherfuckers are dumb. If they're unaliving white people in 4K and the government is not stopping to say, aren't those the people that are supposed to be benefiting from the Constitution? What do you think they're gonna do to us? What do you think? What do you think they're gonna do to Farah and Halimo? Or Jitkis Saudan? They're gonna murk Farah and Halimo. Akhli Skuyela, Jahilimadis Kedaya. You need white people on your side. Especially at this time. I said, I have never been emotional about American politics. I literally cry like, what the fuck is happening in America? They shot that man 9 fucking times. Yep. 9 times.
It's a scary wallahi. And he's It's a scary. white man. Like, I just made a video about it. I'm like, what the fuck, bro? He's a fucking white man. You have excuse when you shoot a black and a brown person. You can say they look suspicious, you know, they look like they were illegal immigrants. What reason do you have shooting and unaliving a white man? Bro, this That is just- out of control. That just goes to show you the people that are saying it's white people's time, bro. If they're unaliving white people in 4K, what are they gonna do to you? I feel so guilty because the only reason why these white people are out there is protesting of us. for us. Absolutely. Because they're not the one that's gonna get deported. No. The only reason why white people are fighting back is because Firi, the white conscious people, dadka oo aqliga leh, waxay dareemeen inay ayaga lagu leeyahay, you guys have stood by and benefited off of, yani waxyaabo qaarkooda idinkana lii sameeyey. So for the people who want to show solidarity, they're out in the streets. They're saying, no, we're not going to let you take our neighbors, our friends, our families. So they're being unalived because they want to fight back for you. They're not recipients of so this who doesn't understand immigration that? problem. Who doesn't understand that? The fucking dumbasses that were in this chat earlier. Oh, kuleh adan on adan crime. Why do we care? What do you mean Adan crime? This is not about Adan. The only reason why the Adan people are in danger is because of your fucking ass. What the fuck? Is Adan people being deported? Our people are low IQ. Like, akli burtooda dhan ma qaban. Well, sometimes the things that people say about us just become true, right? Hey, listen, do you guys live in Minnesota or anywhere near there? I don't live in Minnesota. The sister does. Okay, Abayo, are people going out like this to Somalia, especially if you have like passport and you were born here? Why are all of you guys not going out? That's what I said. That's what I was wondering. That, like, I keep seeing all of these videos. It's just Adana. Sometimes I'll see like some TikTok videos of just Hoyo and Shat Didi things like that. But I'm not seeing enough of Somali people out there protesting this, especially if you were born here. If you're a literally citizen, yeah, like you don't have zero excuse. Exactly. Absolutely. Exactly. I feel like we should actually like They're take a scared. break acid and prepare like dadka dhalinyarada Soomaalida to come fucking protest because dadka cadaanka ah baa noo dhimanaya anagana gurigaan iska dhex fadhinaa. What the fuck is That that? is not cool. Wallahi Adim, that is not cool. That's one thing that people are going to start like actually using as a point to point out, look at these people. The only thing that they care about is taking versus actually giving back to the community. If other people are standing up for you and you're just back home just chilling, that is not the way. It's not a good look, man. It's not a good PR. I've been saying this. I think the thing is they're scared. They're scared of being put into that predicament. No, but we are seeing some Dalanyaro coming out and speaking out. The thing that pisses me off, where is the BLM Halimos? They're nowhere to be found. Where did they go? I want to find them. Where were you? Like marka arinta markay adiga ku taagan tahay, you're nowhere to be found. Marka nimanka madowga la dilayana waa diyaar baa tahay, madow baa tahay. Hadda maanta madow dadka dhan loo baahan yahay. And you're the center of it because your people are the ones getting deported. So where are you? Bro, dadka afka lagu dhufanayo, dadka la tooganayo, dadka lagu kor istaagayo, or Adam people. I don't know, like, it's crazy. Just this span of January, about 20 people baa la dilay so far in different states like Oregon. But like, you know, our city protested. I mean, I don't live in Minneapolis. I live in Minneapolis area, but I'm willing to go to Minneapolis to protest. Bro, 10,000 people I saw behind. 10,000. I saw that. I saw like an huge alien number. view, especially in this type of weather. Oh my God, man. Yes. Well, Literally. St. Paul area, waxaa joogeen 10,000 people. The streets were packed. We need to get people to protest. That's it. I don't think Somalis are going to protest. I'll be honest with you. So Somali people, especially, they have Wait, zero and I don't blame That's- them. I don't blame them. They're scared for their lives. But that's just being chicken shit. You keep your passport with you. Just go out there. Ma fahantay? What is the worst thing that's going to happen to you? They're going to alive you in 4K. The Somalis that live in Minneapolis, they let us down big time because in my small city, I think you've seen the video. You see how we protested, right? Yes.
Like they actually came out. But Yeah, the Minneapolis Somalis, I think majority of them are there because that's why I nowhere to be found. Yeah, I Well, think I didn't think they were all in that much Somali, danger, the though. Tuliyasha came out are showing out more than the ones that live in the big Leave in city. Minneapolis, huh? Because I know two sisters that are on this app that were organizing protests and stuff. Actually, please connect me with them because I will literally take a day off to go. Okay, I got you. Akuso did her page. You know. Because, yesterday I wanted to go to the protest. I called like 4 girls that I know. Nobody was willing to go with me. And part of the organization, do not come alone. Bring a partner, which I didn't have. And I was afraid something was going to happen to me. I was driving like a whole hour. I called like 3 people. Nobody was willing to go. Why? Like they are cracking down on Minnesota very heavy. No, bro, this is... Wait, do you guys remember when they were doing this to California like a couple of months ago? Yeah. All the Mexicans were out. California got so bad that they deployed the National Guard. The Marines. It was very bad out there. And the Marines is not it's a federal entity. The National Guard is actually part of the state. Mm-hmm. But the Marines, they're federal to begin with. So they even deploy those guys. But with Minnesota, it's all like this political chess game, right? They just want people to be preoccupied with Minnesota. To be honest with you, I think this whole thing of Somali and the Mantadan Afkalwayo has everything to do with the fact that they want to divide Somalia. Because you have to create context and pretext and just put it out there. Enough people need to understand who Somali people are, where they come from, how they come from a failed state, and then U.S. and Western allies can create it's policies. justification of invasion. Before an invasion happens, they strip you of humanity and everything. Yeah. Yeah, kind of how they say the African Americans were not full human beings during slave time. Absolutely. That's why when you see Trump repeating Somali talking point every single, he does not fail to repeat Somali in every single speech. Bro, he was at Davos, right? Davos, Switzerland. And obviously, it's a World Economic Forum. Everybody under their mother is there to talk about the world economy. And he brought up Somalis. And he brought up Somalis. Yep. I'm like, what? It's like, dude, we just basically live in your head just rent-free right now. I think this whole... No, I think this whole thing... I'll be honest with you. I think this whole thing is... And it's not I think, I believe this whole thing is being pushed by Kofi Edgam. No, yes. I mean, clearly they have a hand. 100% because Venezuela had only invade. Venezuela was actually discussed in 2017 by Bibi. So Greenland, he discussed Greenland in 2018 too. Greenland in 2018. Yeah, they've been talking about everything that they're doing is the playbook by Kofi Edgam. Have you seen روح قهطايو فلسطين سيدي لو بلاوحن in the United States روح بروتوس جرينا فلسطين ماركت It's a diversion. That's why لقيت جيدنا ماشي صار روا إني لكلين جريو so that the people, the biggest voices for the Palestine cause is from the states. Pretty much. The biggest advocates are from the states. Bro, did you see that they started to create all of these kind of like almost like little shell companies on the names of like big social media influencers, and they've been pushing some sort of like propaganda by like Mossad allegedly? Absolutely. Had the American bought TikTok. Now it's officially theirs. TikTok US is owned by American. This was the point, right? They did not want to have they didn't have any control over what people were saying out there. So they wanted to have full control. And they've been seeing that. When Bibi came, I think he came, was that back just right around Thanksgiving or something like that? He invited a bunch of influencers to New York City. And he was like, hey, can you guys tell us what kind of transaction is going through? We are buying TikTok. This is going to be huge for us. This is going to be huge for the American security apparatus and for us as well.
I'm like, why are you talking about the security apparatus and what is important to America? Why are you pushing that narrative? Maybe it's you who is, benefiting from all of this. So But yeah, it's been a the playbook. biggest plan of the Zios is to fully and utterly destabilize Malayanka so that they can be the world center. Fact. And Somali, by the way, also Somaliland being a part of that, chess piece, is to basically say, hey, by the way, central government has failed, is a completely failed state, but there are parts that are good that we can work with. Hence, the narratives that we're also seeing about Somaliland, Puntland is going to be next, Jubaland, they'll do all of those things, and they'll just kind of carve up and say, hey, these are the good ones. These are the good ones. You just have to basically magaca dhan oo Soomaaliya in a dishid way, completely. By the way, Mandek, quick question. Little bit segue from America politics. Did you see Akjar's speech? I can't multitask, Aniga. I only focus on American politics. I don't know what's happening the way I did for the first time. What did he say? No, he said, because he Who's was that? speaking about the president You of the know, Somali state. Alliance? Yeah, no, he President was of Somali state? There's a Somali state? New state? Yeah. no Somali state that's under Ethiopia. Oh, okay. Yeah. Okay. Yes. He was saying wiilasha ka dagaaltamayaan maxaa la dhihi jiray Jubaland. Bijeex, they kulaha kuwa meeshaas joogaan are inevitably gonna be the ones that are gonna be here. For what? I don't know. That's what I'm wondering. He said dhalinyartu meeshaas ka dagaaltamayso are inevitably gonna be the ones that are going to be here. What does that mean? Well, yeah, that's true. But like, see, in what context is he talking about? Because That's we what all I'm know- asking you. Did you watch? Because yeah, they're inevitably gonna go back either to fight Ethiopia or to go back to defend their borders because that's where they're from. So does that mean he finally grew some balls and he's planning something? No, I think That he's would be so trying nice. to. I think he's trying to say like, Onlif is gonna go to war with Ethiopia or like because That's That's not probably good. what I assumed because Yeah. the talking points that he was saying within that speech goes against not in a good way. Not in a good way. He's saying like, oh, dagaal ina gelinayaan camal oo kale. Oh, so he's saying they're gonna defend us against ONLF. No. They're gonna put us war with Ethiopia because the Akjar's party does not want us to fight Ethiopia because they benefit from the system. They're the one in charge. Get it? And Ethiopia is violating the agreement. So if we go to war, they do not want us to go to war. They made it very clear with the last speaker of ONLF markii la weydiinayay. I guess I am still updated. They were saying, why are you putting us with war with Ethiopia? Everything's good. How everything good? They went back of all the deals and they're taking the natural gas. The Somali people have no mahalish percentage in it. Like the situation is fucked up. So, but they still don't want us to go to war with Ethiopia. The people that the puppets don't want a war. So if he say in the context that I believe that the role he plays, unless he grow balls right now, he's basically saying that that's the way I would understand it. But I can't worry about that shit, bro. People are getting Let's all come up back. in my city. Let's come back to the United States. I can't worry about that back home. My current home is burning, bro. Some other people need to You protest. can't worry about back home when the current home is burning down. My current home is burning down. We need to get these fucking Somali people to protest. No, wallah, it's a dangerous, scary time in the States. Wallah, I never thought the States will get to a point where... I'm an American citizen. How do you feel, Adiga? What do you mean? How do you feel? I saw a white man get unalived in 4K. I'm not dumb. I understand context clues. Aniga doqon me see dadkan amal. Ninka cadaanka hadii laga soo kortilaabsaday. It does not matter what fucking certificate I hold. Well, I never thought this will happen in America, honestly. Like, I didn't think it was possible. Me too. You remember when we were in school, we learned the power of the president is not halij unmatched, or it's not Welcome to Minneapolis. They're gonna worry. Are you alive?
عليكم. Tara, are you عليكم okay? السلام وريا نين عدانا فوركي لو حسوقي ما are you alive بروسكي واحد يجي يجي يرك هالشهر. Hey, ماشي عدانك You know what the funny الأواسانة thing is? خدي نومي يلي Mandate, you know, the funniest thing is, right? So where this happened, right? واحد had Nicollet Avenue 26th Street, right? حدام كده واحد ما كده عين I was literally there. Oh والله I was watching it. Code. Once I saw the ice skate Ninka, I ran into an apartment complex. I got so hurt each other because you know this motherfuckers وحي وضان ولي مضحك صوتهم. يركع المركب ويا رقبة المركب هوري ويسير أفضل فين حدنا ويكون وضع قبتين right حتى أخذ قضياشي صومالية ذي ماشي اسك السعودي نيكولاد أفنيو is like a Somali hotspot أرد مركب اللي أركب فريمبيا اللي يري تذكر أن واقع عرين وحلا كلا قال apartment complex كأكيد وكان كعرة wherever you can قبوا مركب right قصص dadka aan leenahay mana arkay way dhuumanayaan they're hiding bro you realize the white man does not feed it ninka cadaanka oo xabada lagu tooganayo this is not his fight excuse me Renee was gone was I hear والله ما أبي يلا أنا أبي يلا that's what I'm the funny saying human beings are okay والله Somalidu is crazy but they're smart though I'm not gonna lie to you right so they realize صح لما جبت حقوق عليها if the white man didn't have حقوق you have no حقوق No, actually, but here's the thing, Babowski. On Nicollet in 24, right? Marka Nicollet in 26. it is his right and that's not funny I'm not making fun of the guy what the fuck stop trying to guilt trip me we are cooked absolutely when you understand your lot in life I think waxaan noo noqotan lapdog dogs kale noo noqdo noo yara budboodo way adiga waxa lagu aabiyo xaqeeda lama dhicin kishan wuxuu ku dhahay before the Epstein file ku soo bixin cause of war why are you laughing la qalalaasa kiciya and this is people literally are actually suffering because laughter gets you through the painful points in life it's a medicine what do you want me to do cry should I cry for you will that make you happier you want me to show you my tears will that improve your day man listen Asif right fucking weird listen Mayma listen if you was there too when I was there right yeah والله العظيم marka aragto waa carar lahayd you will have run for your son I don't blame anyone who feels afraid for their life because to see this is the type of techniques that was used against black people for so long where a black person as soon as he's arrested it's life or death nothing in between so people are seeing that hold up it's not just us no more now the white man is also being unalived in 4K so روحه وعبسنا rightfully so and I don't blame them this is getting عبسي absolutely who no this is absolutely getting عبسي so Somalidu يبدو you know the sad thing is this is actually hits home I because this is literally close to Carmel area this you know this actually hits home this is actually close to Carmel area few blocks at Ucherstad well the way that things are going it's inevitable for the powers to implode on each other and then when that happens we're fucked that's essentially how you have a civil war you know that right Hi, because he's instigating it. That's the thing you have to understand. Did you, I said on a side note, let me ask you this. Did you read the articles about the Epstein file on Sasha Riley? No. You need to go do a research on that. Wallahi al-azim, give me 1 second. You need to go do a research on that. When you listen to it, there's an audio clip in there where Trump, I don't want to say he said, inside a war, do something. Because if you listen to the doctrine of Sasha Riley, wallah, you will be so shocked. I came to realize this guy, Trump, the whole reason this guy was a pedophile, a PDF, right? Sasha Riley grooming so you basically to do the nasty shit. This guy literally took هلوح لاقيش حق الضبط ولا لو جبيه مركا سموه مركا يقول he's incompetent ما عشان كره وحبه أو عصوفة يبغى سكها وش يسكوا وضنية ليش اللي مركا دقي استدي واحد صوت صعده واحد كسي قرصون بقدر so this actually makes perfect sense بالي إذا واحد ماشي كصعده so go look up on Sasha Riley or the Epstein file كأرياش دقي so bro it's our هذه قدام تقبض قوالني
it's already clear that waxaan oo dhan waxay tahay mask, waxay tahay smoke screen ayaa la rabaa in la isku dhaafiyo the atrocities, the nasty shit that he has been doing, him and his party, for the past so many fucking years. Marka waxyaabaha uu ku qarinaa waxaan oo dhan waxaa waaye dhalinyaro markuu ahaa waxyaabaha disgusting ku soo sameeyni jiray uu ka qayb qaadani jiray ayuu ku qarinaya. And it's not just him. A lot of world leaders are in those files. And then here, this is where it gets funny. So do you remember the guy Jazeera lagu magacaabo mataqaanta Epstein kala uu leeyahay? This is where it gets even funnier. The guy himself kala dilay wuxuu ahaa qolada koofiyad yarta sirdoonkooda. Haye. You understood meesha qof ma la dilay hadda. Nin cadaan baa la dilay habo. fiiri haba qofka ku jira muxuu waaye ninkan la jiidayo oo xabada lagu dhufanayo qofkan madow miyuu ahaa mise waa nin cadaan buu ahaa. haye nurse buu ahaa. waa la dilay maanta ma la dilay qofka maanta la dilay ha waa Minnesota oy hada waxba soo socday markii wax aad ma aha u doodaya dadkan maaragtay Soomaalidu u doodayo ha bishan January waxaa la dilay 20 qof ku dhawaad oo ay laayeen ha والله مريكانka waxba ka socda wax aad u yaab la ka socda يعني waxa ka socda wixii ka socday Germany يعني dagaalkii labaad ee dunida wax la mid ah ka socda hadii inii lagu qabto iska ka toogani karo dadka oo dhan wada daawanayaan waxan waxa waaye waxyaabaha qaarkood oo dadka lagu kiciyo waay waxyaabaha qaarkood oo iskaaga horkeena dawlad iyo shacabkeeda waay صح marka dee waa arrin mushaakil leh oo dhib badan aad iyo aad siiba Soomaalida dee sababta uu raadsanayo sidii qolada iyada loo raadsanayo qarni ee dagaalkii labaad ee dunida ayuu Soomaalidan u beegsaday Allah way soo dhaaftay hadda Soomaali niman cadaan baa caadi loo tooganaa in 4K gabdhi wiilal hada wiil daraato isha laga soo riday isha looga dhuftay bahasha oo dadka gaaska ku dhex tuurta shacabka group markay meel iskugu imaanaan tear gas isha looga soo riday هاي لكن wuxuu rabaa inuu kaba takhalusaba macnaha dimuqraadiyada iyada dalka Mareykanka miyaa he's actually hadda constitution Equal Rights Act of 1964 ma ahayd ayuu rabaa inuu u banado u tirtiro What I asked you guys, waxaan weydiinayay su'aal baro inaan ku weydiiyo. Do you guys realize there's a method to this madness, right? Marka yara fiirsataan. Okay, let's put aside waxa socda. Let me finish horta. Kayga ko oranay Epstein ka. Bro, they came to find ninkaas magaciisa da bro. They docs. I think ka hadal wixiis laakiin stop dropping his name. Si good. Hay. Ninkaas hadda ku sheegay jasiirada lagu magacaabo, right? They came to find out inuu jaajuus ahaa, inuu nimankaas u shaqeynayo ahaa, in waxaan la sameynayo. So here's where it gets confusing. kuwana markay meesha tageen invitationka loogu wacay markay halka tageen cabitaanka wax loogu daray adiguna faraa laga hayaa waxa la yiraahdo blackmail right marka you ba nota you have to work way ama hadii kala weyn ku banaanka ku soo dhiganaa hatta laftigeeda waxa la yiraahdo this waxaan ay sameeyaan right it's kind of a blackmailing waa hawlaha ku leeyin koofiyad gaafka lagu yiraahdo madaxda Soomaaliya hatta qaar baa ku jira la yiraahdo soo moogid oo imaaraadku hatta cabiidsado absolutely so the thing is there's a reason there's a method to this madness oo sameeynaya oo markuu saan sameynaya waxa weeye run to check and the other person welcome go ahead guys no the whole thing وكسي سلام يا لكن أركان خطرتي سولية هاي أنا أهان وأنا فرنقيسان خطرت نقول صعدة محيطة فيري ذاتك يأذى مركي اللينا يي قار إيجا كميدا ويفكادين أمريكان بيوفكادين وكو أمريكان كو بدبادي لكن كو بدن ويجي للاي مركي أنا سومالي ذا وهذا ياب بدنا وحيل خطرها نقولنا مركي سومالي ذا هذا أنت جورتها وحل باهين إني يفكران aniga waxaan aaminsanahay
xataa muxuu haytadiito in maaragtay meesha tan aan wixii aad sidii laysu difaaci lahaa la sameeyo qof walba naftiisa u difaaci lahaa haddii lasoo weeraro aniga waxaan aaminsanahay xataa dadka qaarkii caruurta iyo in laga kaxaysto inaan maaragtay caruurta dhan iyo dadka dhan dhowr mar baan hawo daraata hataa I think 2 week lasoo dhaafay gabadhan markii la tooganayay ayaan ku lahaa Soomaalidu inta daawato patient ku xiran ilma haddaad haysatiin ilmihiina meeshan ka wata intii wax iska bedelayo 2 sano soo socoto ama wax way sii fool xumaanayaan ama wax uu isbedeli doonaa markii intii wax ay fool xumaanin ay noqonin ruux kastow iyo nafta ilmihiina u tashta at least dadka weyn oo dadka yani da'da leh oo shaqaysan karaan oo xoog leh ha joogaan laakiin caruurtu hala wato hala geeyo wadamadan yara degsan صح وين سيدو سلام يا aniga waxaan aaminsanahay hadda si tartiib in xaasaskii caruurta loo wato dadka aan shaqaynin caruurta iyo hooyooyinku in caruurta la geeyo meelahan Afrika la geeyo baasaboorkooda inta loo cusboonaysiiyo oo maaragtay inta odagaan haysto inay ka maqnaadaan maaragtay meesha tan qasan raguna ay joogaan hal marna aan la wada tagin oo waxaa la baxaa si lama filaan ah baa loo baxaa hadda Yurub baa markii kuwa cunsuriyiin ay qabsadeen wadamada ay qabsadeen Soomaalidu si tartiib iyo ajnabigu bay uga baxeen iyadoon la fahmin marka aniga waxaan aaminsanahay inay maxaa haytadiito la bilaabo in xaasaskii caruurta laga saaro meesha wallahi this is not the right time in this wada garab fadhiyo qatarteeday leedahay meeshan hadduu aniga saas ku leh ayaa hooyaday ka kari lacsanahay kuwa yariiska ila dhasheen wadanka ka wad marka Soomaalidu I don't know dad qaarkooda just I don't know wallahi walaal waxaa jira ma baa jirta Soomaalidu tiraado waxaa la yiri waxaad weysha gowrac yani dibigu ha ku qoostaa yani macnaha waxa weeyaan waa ilmihii sac u dhalay waay weysha waxa weeyaan tan oo maaragtay dhadiga ah caruur wax dhalaysa Soomaalidu xoolaha wax dhalaya dhadiga ah maaragtay iskama qalaan waxay qalaan kan maaragtay ama ratiga ama wanka ama ka oo labka ah bay qalaan ninka ah waayo kan caruur dhali maayo markii maaragtay la gowraco weyshii la gowraco xoolaha sii dhali lahayd iyadoo lo kala sii dhali lahayd yani dibiguna wuxuu sugaaya male markii cadaankii la laynaayo oo maxaa adiga kuu haray yani waxa weeye waxa la iska riixayaa ama dhinaca la iska marinayaa laga banaynayaa wadada dadka cadaanka ay hortaagan ilaa iyaguna ay iska aamusaan oo shib dhahaan oo dhahaan cidna u hiilin mayna annaga naftayada يعني أنا خطر وقالنا قدال بإفراسنا يعني. Absolutely. هذا ماشين عدانك وحي أصوب حين هوا حش عمر عدانك بدن كوده وحي هاد أصوب حين وحي تهاي مركي لدحي جوري كستالس كوسو قراعة جوري جالس كوسو قلع مدن حد جود بويد عفته DHS always ويجري جرتي DHS ما أنت ما هو إني هذا ودونالد ترامب faction أوسم استمو DHS أبدا ويجرتي وحيوحل سارناين border يوحيوحل سارناين دتك أو كسو قلو شرع الدرة وضن كان شرع الدرة يا لقدك excuse روح شرعي هيستو يروح عن هيسلين إني لديلو جيل لقيو لحبضيو عنو ير ويل ير أو أفر سنة جيرو ayaa inay cidiisa laga wada maanta waxa lagu dhaxayaa Florida waa cunug yar ilmo yariisa jeel la geysanaya ilmo yariisa xabsi la geysanaya without their parents marka maxaa la sugaya maxaa Soomaalidu waxay u haystaan inay ku caawinayso inaad dhaxdo meeshan baan ku dhashay ama sharci baan haystaa ninka cadaanka la tooganaya meel ninka cadaanka wadanka iska lahaa la tooganayo adoo Soomaaliya lagu sharciyeeyay ama inta ku dhalo ama sharci hal uu siiyo hadii yani aadan soo istaagi karin oo nambarada aad haysanin at least intaada dan yarta ilmaha aad dhashay iyo dumarkaada xaasaskaada kuwaadan shaqaynin dadka cuuriyaanka dadkan waxba awoodin intii waxa ay sii fool xumaanin arrinta ay sii fool xumaanin wax u dhaama Soomaalida ma jirto dadkooda inay u tashtaan aniga malihi kulligiina is wada raac wadanka ka wada baxano inta
oo aanan awoodin hadhowda qac haday bilaabmato inay ordaanay wax sameeyaan walaal soo dhawo wiilka kore وانا سلامة نيو هرتو نينكا مانتي لا ديلي ayago ninka waxaan arkay sawirkii videoga maraan daawanayay ayago dul taagan haddana ayagiyo ku dul fadhiya xabad baa ku bilaabatay ninkii walaal sideed qof baa iskugu tagtay ninkaas 8 officers oo yacni niman wada xoog leh oo hal ruux sideed qof ugu xoog badan waayeen waxa lagu leeyahay xabad buu jeebka ku watay okay 8 ruux markii laba ruux inay gacanta qabato ruux muu ka bixin karimiya xabada oo jeebka ugu jirto aad iyo aad midaas waxay ku tusaysaa muuqaal la tusaya shacabka meesha joogo waxa lagu leeyahay nafiiriya waxaan rabnaa sameyn karnaa marka shacab hadii dawlad shacabka ay matalaysa ay ku burburiso ay ku kor istaagto dawladdaas waxay muujinaysaa inay ay matalin shacab iyo dawlad baa iska hor imaanay shacab iyo dawladda iska hor imaatana Mareykanka is not the best Soomaalidu way xabadaysnay Soomaalida ruux kasta AK47 buu watay Mareykanka cunug wiil gabadh waayeel ruux kasta xabad buu wataa familka waxa laga yaabaa 5 xab inay u taalo kaani hadda nimankan qaabkii hadda u wadaan waa qaab la rabo dadka in la argagax geliyo dadkii baa wali alaana soo taagan marka waxana waa un horo dhac weeye waxa la rabaa tartiib maalintii markii la maqlo 4 baa la dilay 5 baa la dilay dadkan horta cadaanka naftirkooda ayagu waxay u banaan baxayaan waa wax ayaga ku soo socda bay iska moosayaan absolutely ma garata ma ahan asxaan anaga inoo sameeyaan iyo maya waxay iska moosayaan waxa weeye war waxaan haday socoto anaga naftirkeennii baan la cafinayn guriyihii baan ugu imaanaya marka qofkii sharciga haystay oo citizenka ah hadii loo imaanayo anigu waxaan kaga duwanahay waxa kaga ma duwanay marka California wuxuu ku sameeyay California waa soo xasuusitiin this was 4 months ago ay ahayd California markii lagu soo wada daatay California wuxuu dhex keenay the Marines ka waxa loogu talagalay outside conflict California Marines buu dhex keenay dad baa la xasuuqay la dilay California waxa lagu dilay 20 ruux ku dhawaad ayaa lagu dilay صح lagu toogtay ninka California xukuumaya iyo Donald Trump ads basically hadda badanka dadkani oo wax xukumaan way awoodaan inay ku dhawaaqaan anaka waxaan lagu sameeynayo waan ka soo horjeednaa militarigeena baad laakiin waxay ka cabsanayaan hadii saas sameeyaan dawladdu inay excuse ka dhigatay soo gasha full force صح ay baab is kulligooda aad iyo aad waana waa caaq weeye ha wadana waa caaq ma wallahi xaaladdu aad bay u xun tahay niyahow dadkuna baryahan anu hadda waxaan arkaa dadkii Soomaalida ahaa waxaan arkaa in ay dadkiiba isku soo taagayaan nin raba xabado wato raadinaya fursad raadinaya maxaa fursad u siinaysaa laysankaaga u dhiib hada wasalaan waan ognahay ayagoo fursadaas raadsanaya waxay rabaan ka sameynayaan badi laakiin adigu video ka duub laakiin ha noqon qof ku adag walaal wallahi advice ka aad bixinayso waa mid fiican laakiin xilli waxa la gaaray ruuxo oo yani gacmihiisa way isku xiran yihiin bir baa ku xiran waxa ku xiran chain waxa ku xiran handcuffs ayaa ku xirnaa ninka dhulka yaalay ruux handcuff ku xiran 8 ruux kor istaagan oo maskaxda laga toogto cadaan adiga sharci ama sharci hasiinin wadankan meel fool xun buu maraya meel fool xun ayuu maraya wallahi billahi taala fiir horta walaalle waxa weeyaan meel xun buu marayaa waa sida aad tiri waxay u baahan yihiin marka Soomaalidu inay akhristaan dagaalkii labaad ee adduunka waxa ka dhacay dadkaani cadaanka ahi hadba waxbay sameeyaan ninkani waa nin soo baxay taariikhda waa in akhrisanaa maxaa dhacay dagaalkii koowaad maxaa dhacay dagaalkii labaad صح maxaa odagii shaaribaha lahaa muxuu sameeyay door to door buu sameeyay jiray muxuu ku sameeyay dadka muxuu rabay hadda kan sidii oo kale wuxuu rabaa isbalaarin buu wadaa dadka banaanka baa lagu tooganay hadii lagu qabto aad tahay covid gap laguma geynaynin prison
banaanka lagugu tooganay waa aragtay sida dadkaa loo galay muxuu ahay jadiid ugu dambayntii marka innaga sababta uu soomaalida u beegsanayo waxa weeye waa cajaa'ib waxa weeye maxaad u muuqataan maxaad wax u tihiin maxaad baarlamaanka u joogtaan maya wallahi habo way midani way dhaaftay Soomaalidu wuxuu rabay inuu excuse ka dhigto Soomaalida laakiinse midani Soomaali way dhaaftay Mexican way dhaaftay waxay maraysaa yani COVID gaabta adiga plan kooda waxa ugu jirto inay wadankan Mareykanka la dhaho laga taqaluso wadankan Mareykanka la dhahdaan laga saar systemka oo COVID gaabka wadanka hadda ay rabaan inay qasab ku dhistaan laga dhigo center of the world marka burburkan wadankan lagu wado aan arkayno 4K aan ku daawanayno waa plan kooda wax kamid waxaa ka wadaa COVID gaabta ka dambaysa yes because firi Venezuela hadda oo la weeraray oo laga qaadanayo oilka wuxuu ka hadlay 2016 waxaa ka hadlay ninkan COVID gaabka u taliyo maxaa dhihi jiray Greenland oo hadda ku sasayo Donald Trump wuxuu ka hadlay 2018 wax allaali wuxuu Donald Trump maanta uu sameeynayo ninkan COVID gaabka u taliyo ayaa u soo wada baaran degay ما واحد لا قولي عطان كهاد يجي وحي لقى قاعد كركا لقى هستا why do you think عطان كان وضع مظاهرات ayaan مظاهرات madow iyo Soomaali baa lagu no waxay mظاهرات waxay arkeen wadanka ay u maleeyni jireen ayakii inay iska leeyihiin inay la leeyahay korka laga haysto wadankooda wixii iyagu sameeyeen baa laga goynayaa hadda absolutely marka anaka waxaan naxna like collateral baan hanimo u shii anaka picture ka anaka kuba wajirnabo excuse bana loo isticmaalaya laakiin soo wiilasha hadda fiiri markii ay dhacday maxalli jiray Falastiin loo mudaharaadayo oo arrimahan ay noqdeen mainstream wiilal fara badan oo cadaan ayaa sameynayeen investigation waxay ku sameeyeen waxay rabeen inay ogaadaan koofiyad gaab how much control ay ku leedahay wadankan waxay soo ogaadeen every single elected official has a hand in koofiyad gaab midka diidan COVID gaab inuu la shaqeyni waayo he doesn't get far in his career she doesn't get far in her career why do you think labada fi labo maxalli jiray I think they were part of the maxalli jiray maxay ahaayeen state senators behind them I'm not sure Manasora lagu togtay nin iyo xaaskiisa Manasora lagu dhex togtay those were two state officials ilaa ay maanta deep investigation looma sameynin dadkana looma soo bandhigin step by step dadkii waxa sameeyay waxa lagu reps thank you representatives bay ahaayeen midaas waxay ku tusay by the way labadaasna waxay faraha kula jireen a motion la rabay in la soo dhaxdhigo the house lagu bixinayo maxallihi jiray full transparency ruux kasta donorska lacagaha siiyaan marka hadda wuxuu rabaa waxa kaaga daran taas wuxuu rabaa Yurubiyankii inuu iyagana yiraahdo iyagii wuxuu xukumayaa leeyahay idinkuna waa inaa ajnabiga iska saaraan saa anigu iska saaray ma ku haray xataa qaaradiisa tiisa kaliya ma joogay xataa reer galbeedkii wuxuu ka dhaadhicinayaa wariyaha idinkuna waa inaad saaraan hadii kale waxaan bedelayaa wuxuu rabaa inuu bedelo ku haysta oo uu xogoojiyo awoodiyo miigtafaga uu keeno yiraahdo qabsada idinku xukunka anaa idin hadaan rabo lacag u siineeyo absolutely so do Mishar thank you man wa meesha niyo waa meel waalan man Minneapolis hadda anigu jooga it's meesha ninka lagu dilay waxa loo dilay hada video yaal cusub soo baxay oo clear oo tusay mataqaana slow motion waxa meesha ka dhacay markii horena anaga wadamadan markii horeba waxana keenayba waxay ahaayeen COVID gaab ka rabtay inay wadamadan ay burburiso cadaanka ama Yurub ha haato ama Mareykanka ha haato waxay rabaan markii hore waxay rabeen inay dad ka soo buuxiyaan oo laga qabsado dhulka dadkan cadaanka because cadaankan ama kuwa Yurub jooga ha aadaan ama kuwa halkan jooga ha aadaan kurtigood waxay ka yimaadaan wadamada Yurub ma garatay wadamadaasna 113 jeer bay buriyeen dadkan
koofiyad gaabka la dhaho wadamadaasi ku burburiyeen adigu 500 sano meel sanado gaaraysa because mar walba meesha ay tagaan dadkan koofiyad gaabka waxa lagu yaqaanaa inay debt bay ku garanayaan debt ma garta lacag in lagu yeesho oo lacag ay dadka intay lacagtooda isku keenaan bay lacag dadka deymiyaan markay deymiyaan waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaa noo soo saartid 20% lacagtaas inaa noo soo saartid interest interest yeah kinyaasha ku jiray wadamada Europe oo dhan debt ay geliyeen ma garata king dana waxa la gelinayaa debt la gelinayaa why do you think ninkii shaarbala wadatay why do you think ninkii shaarbala Soomaalidu waxay u maleeyeen ninkii shaarbala maalin inuu iska soo qaxuu yahuud iska nacbana no koofiyad gaabka wuxuu ninkaas u baabi'inayay because wuxuu ogaaday waxaad leedahay hadda ku soco mida kalena sida Mareykanka hadda u daabay hashmar one moment wiilku daasaha watay ku soco no taas kaliya maaha mida kale beenay ka sheegeen inta dhimatay oo koofiyad gaabka beenay ka sheegeen because haddii aad fiirisid Germany inta ku noolayd oo mataqaanaa sanadadii ka horeysay like sanad 1933 markii census kala suubiyay waxay sheegteen iyo waxa laga dilay isku mid maysa ahayn mida kale ninkaas yes waa runtaa wuxuu u soo kacay wuxuu rabay inuu dadkan iska joojiyo mida kale waxay suubinayaan khaniisnimada iyo waxyaabahaas already Germany wadankii ugu horeeyay wuxuu ahaa oo nin naag uu noqday naagna ay nin noqotay oo mataqaanaa laga bedelayba qofkii oo dhanba wuxuu ahaa ma fahantay marka waxaas ka soo jeestay bugaagtii ay qoreen oo waxyaabahaas ka hadlaysay buu gubay ayagii buu ku soo jeestay ayagana ogow labay kala ahaayeen koofiyad gaabka labadu kala ahaayeen waxa weeye kuwa uu cayrsanayo oo leynayo la dagaalamay iyo kuwa uu la shaqeynayay siday wadanka Falastiin u qabsadaan wadankan hadda ay haystaan oo uu ku dhahayay anaan saaraya shibyaal iyo boodyaal aan saaraya ayaguna waxay dhaheen warqad ay u qoreen mid ayaga kamid ah oo Rothschild la dhahaa warqad u qoray UK-da waxay ku dhaheen markay mataqaanaa ay partitionka ay suubinayaan sidii loo siiyo dhulkaas waxay dhaheen dhulkaas in la siiyaa jecelnahay gacanta wuxuu ku jiraa Britishka uu ku jiraa Britishka annaga inay nagu soo wareejiyaan baa u baahannahay saasayna suubiyeen oo Britishka way partition gareeyeen wadanka waxay dhaheen 50% ama ka badan ninka qaadan kara laakiin 50 maysan noqonin 100% ay rabeen inay qaataan soo waxaas oo dhan history-gaan oo dhan ogaada wuxuu ku saabsan yahay diin ma yaratay waxaan waa diin ahaan lagu dagaalamayaa ama ka warqabin Soomaaliya waxaan hadda dadkan waxay rabaan inay Al-Aqsa intay qabsadaan ay burburiyaan ay ka taagtaan temple-koodii oo ay leeyihiin hadda ka hor aan lahaan jirnay markaasna waxay sugayaan inuu yimaado dajaal inuu yimaado oo uu ayaga u taliyo bay sugayaan gaaladanna waxay rabaan inuu waxay isleeyihiin markuu dajaalku yimaado dadkan waxay noqonayaan Christian ay noqonayaan soo sheekadan waa inaan keenay leeyihiin marka waxaan muslimiintana waa la socotaa nabi Ciise iyo anagu inuu soo noqonayo waxaas believe gareynaa oo mataqaanaa anaguna dhinaceenaas ka wadanaa beliefkeena soo waxaan oo dhan waxa weeye waa diin iyo dan ma yaratay iyo mataqaanaa dagaal ka dhaxeeya dadkan cadaanka iyo dadkan kale oo cadaanka oo koofiyad gaabka absolutely anaka we just collateral so do I am okay ani magala go ahead horta Jarmalka ma arkaysa markii ninkii shaarubaha uu joogay dowladaha oo Europe Mareykanka iyo Britain powerfully ahaayeen awoodi lahaayeen an markii uu bilaabay inuu soo noco dadkan maadaama qaniisnimada ay keeneen in ilmaha la qaniis laga dhigo oo mutilation ay ku sameynayeen markii uu diiday uu dagaal ku bilaabay ayaka bangiyaashooda oo London fadhiyeen iyo lacagta ay ku haysteen Jarmalka waxay dhaheen boycott karee they boycott when ay ku sameeyeen Germany waxay aad powerful industrialized ay ahayd marka waa la qasbay even asaga muu rabin inay Palestinian tagto because hadaa fiirisid speechkiisii u dambe wuxuu dhahay why would they take Palestine askale Germany askale camal uu leeyahay hadaa dhageysatid speechkiisa marka waa asaga xoogay u qabsadeen maadaama ay ayaka iyo awood lacagta financially waa ogtahay wadanka haddii hadda Mareykanka maanta adduunka uu isku dayo inuu lacagta hoos geliyo bondska ay diidaan inay iibsadaan that or they return it saasay ku sameeyeen marka Jarmalka
so economy hoosi geliyeen markiiba so he had no power qayli unbaa kasoo hartay asaga صح markaasna dagaalay ku kaceen dadkii oo Rothschildka yahuudi lacagta haysatay waxay sameeyeen Mareykanka leeshin iyo Britishka inay dagaalka galaan صح dagaalkii koowaad adduunkana saas u ahaa ayaga lacag ku bixiyeen inay dagaalka la galo dagaalkii labaad marka adduunka British iyo Mareykanka way galeen dagaalka waxay la dagaalameen Jarmalka and the same hadda ayaga rabaan inay Mareykanka intuu Trump tegin maadaama ay jeebka ay ku haystaan inuu dagaalkan galo asagana صح marka always ayaga way rabaan inay dana dagaalada ay gelayaan adduunka oo dhan dana ugu jirtay ayaga danta ugu jirtay waxay ahayd wadanka ay ogyihiin inay ideologically and politically la dagaalami karin waa inay powerka ugu weyn ay ku dhahan dagaalka gal and this is why dowladaha daafirisid Jarmalka badi waxay u qaylinayeen oo ninkan mushaarabaha uu soo baxay oo dadkii uu taageereen asaga it was because ministeriyaasha dhan ayaga qaateen Nobel Prize ayaga hayleen jaamacadaha dhan ayaga haysteen lawyerihii ayaga haystaan businesskii ayaga wax kasta shacabkii No, meesha waxba kuma haysan it was actually to the point. You are right. It was actually to yeah the point it is like now where Mareykanka Suka Shamar, real quick. It was actually to the point where they owned the crown itself. They owned the government itself. It's literally like Mareykanka right now. Mareykanka, the reason as to why the Adan person in Mareykanka woke up today when it's too late is because of waxa Palestine ka socday. Palestine markii waxyaabahan ay ka socdeen wiilal dhalinyaro cadaan ayaa iska xilqaameen iyo ciidag ummado kaleeto ajnabi oo yani madow carab ayaa iska xilqaameen inay fiiriyaan systemkan Mareykanka dadka xukumo oo u taliya dadka like the leaders ya faraha kula jiro ciidan covid gaabka waxay arkeen out of 100 90 or 80% of the elected officials in the states are in bed with COVID gap to the point where debate maki la qabto to elect a state senator, to elect a mayor of a town. The questions that is asked to that individual has nothing to do with the position that he's running for. It has everything to do with the longevity of COVID gap. Workers. That is it. And then it's like أنا مقدشة فيري. It's like أنا مقدشة أما كسمايو أما مالهن أو أردايو جغو أردايو ليويدينين محاكا سمين رتا جغدا أو قبني the state أما سيريغن أو ليهوده أمريكا محاوقا بني دونتا. ما لغويدين waxaa lagu weydiin in Kofi Gaab ma taageersan tahay waxay rabto ma rabtaa only that ay u odaynayaan and haddaa fiiris baarlamaanka hadda Mareykanka labada xisbi waxay ku heshiiska kale ay ku heshiis ku yihiin waxaa waaye Kofi Gaab maxaa loo qabanaya that's the only something they come to consensus waa taas absolutely policyga dadka la caawinaya haddii la dhaho healthcare maanta dadka loo adeeyo way diidayaan ayagoo dhan why because companyga lacagta haysta oo lacagta ka guranaya shacabka waa Kofi Gaab askale Kofi Gaabna ma rabto free healthcare because ayada lacagta qaadanaysa schoolki educationka the same they won't fund free food hadda fiirsa European school oo free food haystaan ilmaha free lunch Mareykanka ma rabaan because lacagta Kofi Gaab la siinaya in ilmaheeda ay ku siiso wadanka loogu diro laakiin ilmaha cadaanka ay helin qaba literally waxaa la siiyaa billions and billions of dollars a year for people in that country, right? In that state to live comfortably where the people over here are actually taxpayers lacagta laga aruurinayo they don't see their own money. So ninkani cadaanka maanta kacay umuunan kicin kalixle Soomaali baa la dili rabaa iyo cadaan baa madow baa la dili rabaa iyo dad xuquuqdoodan ilaalinaya no wuxuu ogaaday asaga hata inuu xuquuq lahayn constitution kani waxan uu soo dhacsaday means nothing absolutely jack shit because wadanka ruuxa adiga ku taliyo he's not working in the best interest of you. He's working in the best interest of another man in another country. To the point where Kofi Gaab in 4K in a sofa distant television ka ay kuleeyihiin ruuxani anaka soo dooranay waxay kuleeyihiin ruuxani state official kan anaka hadaan jecleen sidka ma heli karo the only person that gets elected in the states is a person that we choose marka ninka cadaanku wuxuu ogaaday his whole world waxa dhan uu believe gareynay waa been wax ka kala jir ma laho qoraa laga haystaa
haddana there's another thing dadka qaxootiga waxay u malaynayaan inay wadamadan loo keenay in la jecel yahay oo humanitarian loogu keenay. It was not humanitarian. Waxay ahayd dadkan waxay arkeen votingka codka waxay dhaheen waxba kuma helin. By the way ma arkin ina aragtay videoga ninkan Palantir iyo ninkan Jewish community-ga u weyn wax saas ah. Wuxuu dhahay haddii voting aan galno oo la iscodeynay anaka cod ma helino. sidii aan ku meel gashano waxa aan u baahanahay aan u helno waxaan keenay qaxootiga in la soo dhoofiyo oo la keeno wadankan oo qaxootiga aan dhahno xuquuqdiina dadka madow kaaladka sidii asaas ay ugu helaan ayagana waxyar baan ku darayaa aniga waxyar baan ku daraa fiiri Soomaalida waxa loo raadsanayo oo hadda loo daba joogo oo looga hadlayaa idin sheegaya oo ajnabiga kale ee adduunka meel kasta ka yimid Soomaaliya looga soo dhex saaray meeqa wadano Afrikaan ayaa jooga 54 wadano Afrikaan jira waa laga soo dhex saaray Aasiya cid kasta laga soo dhex saaray sababtu waa sida tan markii labadan reer Koofiyad Gaabta iyo reer kale ay isdagaalamayeen Soomaalida waxay samaysay taageero weyn bay samaysay meel kasta ka samaysay ama dhaqaale ama TikTok iyo calaamadooda la qaato iyo barnaamijyo loo barnaamij iyo wax badan meelaha kan aad bay uga hadleen waa la arkay ninka kan meesha Koofiyad Gaabta haysta wuu hadlay wuxuu yiri markaan ka soo dhamaado dagaalkan aan ku jiro uu iga yaraado wuxuu yiri wadamo Afrikaan baan shaqo ka qabanaya hadalka raadiye maxaa noogu xigay marka anaga waxa hal mar yimid laba shay ba hal mar yimid Soomaalidii Mareykanka joogtay oo la maaragtay la war lagu haayo mid afa kuwii dhulkoodii oo la caynayo dadkii oo la caynayo iyo kuwii Mareykanka joogay dagaal lagu qaaday gabigoodii marka fiiri Soomaaliyana maxaa laga sameeyay Soomaaliya waa la kala gooyay laba laga dhigay It's a normalization. This is all in tactics of Balfour Declaration. Haddad akhriso Balfour Declaration. Normalization of takeover starts with demonization of shacabka meeshas ka soo jeedo, alienization of who they are, inay la dehumanize gareeyo laga dhigo inay ahaan dad bilow aadmi ah xuquuq aynan istaahilin ay yihiin dad subhuman. Every single word and every single action that the president Donald Trump and his administration are taking, it's straight out of the playbook of Koofiyad Gaabta. Marka fiiri maxaa lagu samaynayaa waxa weeyaan war idinka ma qolana taageeraysaa idinkoo mushkilada haddana cidaan sii taageeraysaan miyaa oo haddana Soomaalida carabta waa isgaabiyeen ma ogta ma arkaysid Sacuudiyaan calanka qoladaas ay la dagaalamayaan wata هو خليج كودن كوا أركيس عن كود. No, in fact, they all signed the Abrahamic Accord. إياه كدن شب إسكيران مو ذي قلنا عربتي درس كلا أحد إياه قول على هذا النجا نوكسكية النجا محا سمينا حتى رئيس الوزراء هني بعض الله عند كلام إسكداي أوه يري حطينا نيني وايدين إيماننا هذا مقول لحتى مركا أديك فيري يوي معنا مركا مريكنا ما وكاديو حقادي مريكنا وما زرجوجك عنايان ما أنا مريكن كسبنا وهذا ولا هذا الكيس هذا أنا مرة بينا شيء وأنتوا هذا ليه بقولوا يجري أنا قاعدين إيمانين والدفاع وإحنا عاسوي هذا على لوبا عنين إن لو هذا قال في ومش توح اللوبة هي سياسة باللوبة هي ضد كان وضد فضد ويان أد بيسومال دو فضودين وضد أن كيف كرينين وحويان وحكن أن سمينينه أنك محانه وقدن فاهمسا محا أنك نضم حي نبون نو كيني كران marka TikTok waa isqabsatay ma ogta calaamadaana isqabsaday hada koowi waa sheekadaan markay bilaabanaysa cagoy jabow waxaan u samee marka anaga Soomaalida waxa loo baahan yahay in isgaabino daneena ka hadalno ninkan carabka ahi adu doodaysid sax waa qof muslina waa qof bini aadan ah laakiin hadii aad taadi ku seegtid arag dhibaatadii maanta anagayna haysataa والله وحكى لي إنيس أنا أرنك أهين Black Panther وذا النقطة
Firi, thank you, Habo. hadalkaas soo raadi Thank you, Habo. Firi, horta Hashamar, runta sheek, go ahead, maanta kullu ana la joogtay. You want to add anything? Thank you. I'm Santa. I appreciate that. Assalamu alaikum. Yeah, I just love what baan doonayna ku daro. It's very interesting waxaad ku hadlay. وعليكم السلام. Look, labada waxaad oon kala goy lahaa. One, xaaladan waxa weeye because dadku wadan ma leh. Qaxootinimadan, I don't know, Soomaalidu how long, but 35 years but chance haysateen adduunka dhan qaxooti ku noqotaan. You have to go back. dadkan wadankooda diidsan ee adduunka sida qaxooti u fadhiya wadankiina diidaya inay wax ka qabtaan. Wuxuu ku leeyahay wadankaadu waa shit. That's the truth. As long as wadanku shit yahay, waa lagu caayaya. Waa lagu baadilaya. Xaquuqna ma lihid. yaa ku hadlaya haddana adduunku dilo. Anyway, haddii lagu dilo. qof inoo hadlaya ma jirto. We don't have anything. So taa horta reality waa kaa. Okay? wadankaada orda dhista. oo ka baxa ninka wadankiisa. The next one I like to point out is Niho Somalida, just in general. I don't understand, brother. Lacag way haystaan. Dad faqiira ma aha. Ma fahante. But lacagtooda wax sensible kuma sameeyaan. Dembidoodii iyo inkaartoodii iyo wixii now there's no community. So I don't know what the plan is. Like, waxaan dhihi lahaa, listen, haddaana shaqay karen, haddaana xoog lahayn, haddii lidu qabto lidu xiro in jugladaasi askarta ka bax. I mean, the president is actually telling you repeatedly, Somali, I don't want you. I mean, self-respect kadimeye, dignity kadimeye. That I look personally, I just want to say, ninkan ade le dile. Okay, so dabar ad ba le dile, adana nim ba le dile. So the hierarchy one in ad, right? Ninka ata wa le dile. The game is up. I swear to God, that nak tahay at toban arud chi as a single mother, get the hell out. That duk tahay, get out. Because problem about unakonasa of kashaqeya. Now they have to look after you. Tugintin an illegal ke kabuhana kabuha in a gabitin bit of cocaine. They're yellow baha. The burden of Kailina se Masar Kairane, Bashko Sohirate. Oh my God, I don't know. The burden why can't say way. Another arm mussa. Deal with Kufsa, they nain and arms, so we don't care. Everything and darling are tagging in TikTok, your bloody BBC or CNN. While they Kufsa, they well, they did it. Wait, shh. Lapa, yay, wahan, host to make a shakayan. Ima there yellow arm mussa, Hadana Kada, cleaning wooden kiss of the bah. Europe on Lahale. I'm in the UK. I don't know that can wahila amson yoko. We're also certain. Listen, Mershun Wahitai, that can mudu, ye that can branca, Europe Copaten. I don't Wahmad Dalayan. We yeri him. When is Ilalian. So in your palace of Fana Yamesh. It's not personal. We yeri nakta abu sat me after. Are you loving Tomba Dalasa? Mexican covered daran. So it's not personal. What don't call Irania? What are the Hassan or Urdio, Sweden area, bloody what you call Italy area? What you don't want to society, Germany, where Barbara and Somalido. Walla wada. Lantila Kadi. The Somalis in the States to all go back Maleda. We have no human rights. I must say, wallahi, in UK, I have no human rights. There is near a Kailina CNN, Lewali, Delawalikus. What's say, wallahi? I agree with you, host. This is a statement. To Somalia, say, wallahi, Bella Kusania. I choked the Wadanka like Walla Kusada. And every one of our system got so maridona. How can you surrender the Balamate? Ninkan Bass is South African in any Haista. How can we jumble to? Yeah, look of Sada Gabar UK the joke about what do you think that kind of station can make you add again? I really listen, Niman Kamesh under Kapsadi, how can we Kosubu and Kofi and what a skirty Palestine joke? The training of them, other mother had them straight up, no joke. Ninka show they had. Wahalotusia community. Listen, Marka of Horta Ludilayo, or intentional of the Ninka Habat and Ninkan ad. Walutusia in other. Was straight up, exactly what the host was saying. They're showing you. Listen, Ninka ad Baudusaraya America. Nakta ad Bakuhector. Ninka ad Balaboria. Wahan Mudu, Wahan Branca. Get out the place. Good at a kuchuk. So don't mess around with us. I want to understand something. I want to understand something. Hold up. Europe Hold up. I want to understand something. Are you saying for all the Somalis? I understand to a point. Danyartu
dadaan waxba qaban karin dadka curyaanka maamooyinka isug I understand for them haddii ay tahay before it gets bad for you to leave and maybe storm out the weather. I understand that logic, but are you saying for all Somalis to migrate back? Ideally, I don't know, ideal ka hadlano daacadnimo walaalo qofka war cadaankiiba ka cararaya wadanka. You know how many Americans cadaan tagay oo Europe ku noqday? What I'm saying is haddaad ali shaqaynaysid, you can hustle. State ka duu ku xumaado, you can move. You can still survive. Like cadaanka la dildilaya raaci karasa. What I'm saying, you can move around. Your agahadu ma xirna. You can move around. Lakin waxan they made ka aad wadid waxana 100 single mothers and pensioners, you know, they could dead meat. You have to get rid of them. Because they're going to cause you problem. هذا problem weyd ku dul noqonaysa markii marka guriga loo soo galo marka waxa leedahay hablahan iyo ilmaha la isdaba jiidayo I don't understand in adeero wilina way dalayaan. What do they want? How is difaaca? That's a woman. I can't get into this. I think situation ka say u socoto xaaladda get the hell out, man. You really know you're good for the kids. Why are you still there? You're not going to get benefit for your kids anymore. You're not working. Lacagta hadii la gooyo ID maxaad la fadhidaa? I don't get it, walalo. Listen, they're stupid. I think Somalia is so bad, they don't want to go. That's how bad. Ninku wuxuu leeyahay wadan shit away. Markaas uu leeyahay waa inaad baxdaa. He's actually admitting safe ma waha wadanka in la aado. Sadaba le safe ma ha waa madax duub waa shit. Markaas you don't even I would have gone to court and said, listen, madaxweynaha yiri meeshu safe ma ha waa madax duub waa shit. Maba aadi karayo. How can I go? Deportation. لكن ولو wuxuu ku leeyahay get the hell out because madaxweynahaadii baa aaday, you know, Hassan Sheikh came and he signed it just the way he signed all over Europe. qaxootideeya anybody with a criminal record iso celi ama what about ilmaha meesha ku dhasheen oo sharciga leh? Brother, we just have to watch our back. Ish yar waa la kufsado waa la dilay. So you just watch your little back. Even hadana kundala and you got legal status and you're working, I'm just saying life is going to be harder for you. The chances based on I do agree with you. I'm not against Firi. Horta. Like I think the pensions need to go and the single mothers need to go. Firi. There's a lot of things I disagree with you on, but this point I agree with you. We are actually saying the same thing. I believe before shit hits the fan. We need to deport them. And suk da shamar. One moment, Firi. Before things get bad. Because they are going to get bad. If you're seeing a white teen man in 4K being put down on the ground like a dog, 9 to his head, right? Although ajnabi although middle although African although Muslim especially you're a woman that's jida your sagal kids, dead kids. It doesn't look pretty. So I agree with you. The woman midaadan shaqaynin mid ilmaha fara badan leh, if at least adiga aad joogayso and you have relatives back home, ilmaha isuk one moment isuk, don't interrupt me, one moment Hashomar, I'm trying to get a point across. Firi, it's much better to split the family right now as we speak, because ilmahaadu haddii adiga usoo shaqaynayso for the next 2 years, it's probably going to get bad. Ilmahada wadankii u celi. Somalia hada uga cabsini. Somalia, all of Somalia is not dangerous. There are parts of Somalia ku noolaani karto, nabad oo safety ay jirto. Geyso, parts of Puntland is safe. Kismaayo is safe. Parts of Somaliland is safe. Right? Even at our occupied territory, Jigjigi meelayaashan waa geysan kartaa. Way ku joogi karaan. Nairobi baa geysan kartaa, Kenya baa geysan kartaa, NFD baa geysan kartaa, right? So Somali Maraykanka is not the end all be all. If it's getting dangerous to the point where gabdhaha Soomaaliyeed inay jidka laga wata la kufsanaayo, dadka la tooganayo, lisbaabi'inayo, oo aad aragta 4K inay ruux asagoo waxba galabsanin gacmaha ka xiran maskaxda laga tooganayo. What the fuck are you waiting for? I mean, you're not Adan. If they're doing that to the Adan man, what the fuck are they going to do to you? So I understand. I agree with you. Yes. But okay, for all of us to move out, this is kind of not possible. Go ahead, AM. Okay, not me. Yeah, go ahead. waxaan ku dhihi rabay, you know, this idea ma ogeyna aragte Davoski. I don't know, last year may ahayd mise I don't know if it's there, I'm confused. Ninka oo BlackRock managerga weyn kan CEO-ga wuxuu dhahay, you know what, I think this idea-ga oo qaxootiga la keenayo waan ku fashilmane. waxaan isleeyahay qaxootiga keen oo way shaqaynayaan oo integration ayaga waxay rabeen voting block ay rabeen ayaga markii hore,
but now waxay arkeen dadkii way badanayaan ideology waxay ii keenayaan you know dadkan hadda sheekadan dadka la xasuuqayo is the one that opened the people's eyes oo furtay indhaha macnaha dadkan kiristaanka waxay aaminsanaayeen dadkan koofiyada gaaban inay ayaka jecel yihiin oo isku diini yihiin ay u malaynayeen you know that but since Palestine la xasuuqe waxaa soo baxday inay neceb yihiin عدانكي يا معك وقرا you can't kill us oh we are always watching you get the fuck out of the budget of our state أنا ما حنا مركب باو we left our state of Somalia ما شارنا أنا كوغل قلنا دتك state كسكلا أو عدانكا border سوقرتين you guys are killing us تاجنين بro أنا Somalia حاجة تاجنا this is Minneapolis وماشي لقوم الدار هذا this is Lake Street كرمال نعم كله يجي جرت أسود دافع waxaana u jeeday cadaanka all of them balankay taagan yihiin the reason why ay u taagan yihiin is just because of eyes ayagii asxaan loo filin madaxa laga tooganayo aad maxaa taa marka you are just a Somali bro abaya karaan loo hadalkaasi wada sorry facts ku saabaa marka waxaan ka wadaa dadka kiristaanka oo reer galbeedka oo lacagahooda diray kaniisadahan mega church waxay diri jireen lacag billions oo inay dhahaan siya yahuudda isku mahdab baan nahay macnaa isku dhinacaan kasoo jeeda islaamkaan la dagaalamin ruuxa islaamka maanta oo ogeen dagaalka adigaa lagu haya muslimka lagu haya dagaalka daraad ninkan lady Lindsey Grahamka wuxuu dhahay we are fighting against Islam hor way kasoo baxe the same Bush markii uu bombgareynaya Iraq iyo saasuu dhahe but dadka islaamka waxba ma fahmayaan waxba ma fahano annaka is haysanaa shiica haysanaa sunni haysanaa qabiil hebel haysanaa kan u haysta we are just too low ma fikirno marka gaaladii markii dagaalka Palestine u imaaday Palestiniinta zaaid banaanka u keeneen sheekadan oo inay kiristaanka neceb yihiin iyo waxa ay soo baxeen cadaanka waxay u xanaaqeen waxaasaa kamid lacagtooda oo meel bilaash lagu cunayo nimankana waxay rabeen dadkan integrationka qaxootiga la keeno wadamada cadaanka oo cadaanka ay isdaldalaan ay isyareeyaan oo cadaanka ay yaraadaan oo dad kale ay qabsadaan wadankooda because ayaka way ku noolaanayaan haddii maanta matalan Europe iyo Mareykanka cadaan ay ku yaraadaan oo dad madow ay bataan ayaka way ku noolaanayaan because ayaka minority wa black waxay iska dhigayaan you know because ayaka powerga fadhiisanayaan meesha powerka so maanta this guy or BlackRock wuxuu dhahay we made a mistake immigration was not a good situation because hadaa fiirisid waxay keentay immigration waxay keentay dad Spanish kristaanka awooda badan oo diinta haysta badi waxay dadka Spanishka Latinka oo wadi Catholic badi u haystaan iyo Orthodoxka waa dadkan East Europe-ka kristaanka xooga haysta dadkii way soo guureen waxay imaadeen wadamada cadaanka muslina imaade waxay ku kiciyeen dadkii Kofi Gab dadkii lagu kiciyay waa la furay indhaya dadka loo furay because dadkii Europe iyo Mareykanka diintooda way dhamaatay there was no Christianity malaha kaniisadaha way maran yihiin mata Orthodoxki iyo Catholicki oo diinta haystay soo kiciyay macnaha dadkan isku mahdab manihin and after this now we bedeling Kofi Gab Davos waxay dhahdeen this was a bad combination qaxootiga aan keennay what we need is inaan robot sameyno meeshii shaqaale aan ka heli lahayn waa inaan robot sameyno laakiin populationka aan yarayno I agree with your bio. I agree, Fidi. Fidi, this is a good segue also. But lowering the population. Hold up. One of the most richest people or يعني Palantir هذا تقانين is basically surveillance company / وحي تهي tech وحاوي they're in every single sector وحي كجيران defense sector private sector أي كجيران هذا نينكن Palantir ووصل ريو وحيو كلا شقينا يا أمريكانكا full on surveillance system أيو كلا شقينا أمريكانكا waxyaabo qaarkood wadankan qos socdaan u soo socdaan is even dangerous to the YT man himself ninka hada gawaarida oo wadanka sug one moment
ninka cadaanka ee hadda maanta soo baxay muunan u soo bixin because madow baa xuquuq lagu xadgudbaya. No, don't get it twisted. Ninka cadaanka wadankan joogo wuxuu ogaaday asaga hataa inuu wadankan langaab uu ku yahay, halka ruuxa kale xidha wadankan diiqa ka ah waa yahuud. Waxa way covid gap. markuu ogaaday the inevitable truth uu ogaaday uu meeshan ogaaday in lala joogo korka laga haysto uunan arkaayo maanta in caadi loo soo baxo dadka maskaxda laga tooganayo dee adiga Soomaali hadaatay maxaa ku yaalo. That's the question essentially I want to ask. I really couldn't give a fuck cadaan haduu laayo, right? But Soomaali hadaatay ilma aad haysato, what's your plan? Because things are not looking good when they are unaliving people in 4K, when they're kidnapping little kids. This is not conspiracy. Unugiriso afarsana jiro aya hooyadiisi aabihiisi in laga afduubtay Florida baa lagu haystaa. He's a 40-year-old kid. Marka maxaa la sugayaa Soomaalidu maxay sugaysaa? Don't forget aabkana way la wareegeen. Yeah, so information ka wax walba halkan ka dhahaysaan moving forward waa nala socdaa. Soomaali xataa hadaa ku hadlaysid wax walba halkan ka dhahaysid waa lala socdaa. Saabsoo ma garatay wax meel oo Instagram waxa iskale iyo Facebook waxa iskale nin Yahuda iskale. Hadda Larry baa qabsadayna TikTokna waa nin asagana waa COVID gap ma garatay. And every single social media aragtid waxa qabsaday COVID gap kana waxay rabaan inay la socdaan wax walba oo qof walba dhahayo ayna suppress gareeyaan qofka raba inuu runta sheego oo isku dayay inuu mataqaanaa cunuga hadda waxa soo daawataa and you know the kid something guy, your favorite guy cunuga and halay video buu soo duubay oo uu ka hadlayo and mataqaanaa MacBook Air and he has a Air mataqaanaa, what is it called, MacBook Air or I think MacBook Air, yes. Yeah, MacBook Air. waxa arkaysaa systemkiisa telefonkiisa bahalkiisa waxa la wareegay Pegasus la wareegay. Pegasus the waxa weeyana waa is a software oo lagu hack garan karo and even iPhone ka lagu hack garan karo oo kuwan iPhone ka xataa iska leh oo Apple way la shaqeeyaan COVID gapka. System bay ku caawiyeen inay suubiyaan ay dadka ku dhageystaan mana kuna attack-gareeyaan systemkiisa oo dhan. haddii ay waajgaraysid videogiisa wuxuu leeyahay I don't know telefonkayga baa actually this is a good segue adaa wadato. If you updated your iPhone, if you have an iPhone, if you updated your iPhone recently, go into your settings, go to Apple Intelligence and turn off the new update that they just did. Apple automatically collects all of your data. So you need to go into your Apple Intelligence, go to settings, Apple privacy and security, Apple Intelligence, and then select the feature of send my data to Apple, turn that feature off. u baahanahay telefonadan oo dhan inaad ka takhalusno. It's very hard. Wallahi it's not very hard. waxa loo baahan yahay mataqaanaa telefonadan oo wastiga oo dhan waxa hadda mataqaanaa haddii aad la soo baxdid app haddaa suubisid adoo qof muslima aad macdid inaad u tagtid Apple aad tiraahdo waxaan rabaa inaad gelisaan app store-ka inaad gelisaan appkan baa u baahanahay haddaa ku tirahdid way fiirinayaan appkaaga way ku diidi karaan ma garata oo waxay suubinayaan waxay isku dayayaan waxa weeye ayaga ilan telefonka haysto sumaha appka telefonka ku jirtana Apple controls all the apps oo soo geli kara iPhone-ka. marka dadkan tiradii ka batay oo mataqaanaa oo aan wadamadan ka soo jeedin oo cadaanka ma garatay number 1 wayga lagu xukumo waxa weeye telefonadeeni anagoo dhan telefonadeeni waa iPhone yaal weeye. Even Samsung way haystaan way geliyeen something. You know and hadda and company-gan oo Chinese-ka oo ay blagareeyeen maxaa la Huawei company-ga Huawei la dhaho telefonada ay suubiyaan 100% ayaga iPhone-ka ka fiican. laakiin waxay wadamada westiga ugu diideen waxay ka baqayaan dadka westiga jooga inay telefonadan qabsadaan ay soo gataan. hadday telefonadan soo gataanna laguma spy gareyn karo. hadda haddii Huawei phone soo gadatay Hashomar dadkana uu soo celina Hashomar adaa wadatee. The people that are asking in the comment section, you're going to go to your settings. Once you go to your settings, waxaad tegaysaa privacy and security. Once you go into privacy and security, you're going to scroll all the way down. waxaad tegaysaa Apple Intelligence Report. It's supposed to be with the new update waxay ka dhigaan every 15 minutes. Turn that shit off. Off ka dhig so that your data is not automatically sent to Apple.